بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولا ليال ميل كستا والدنيا يدافع عالم كاتك جوتان. إلهي سبحانه وتعالى هيدن بركيو، إلهينا هيدن حفديو أينما كنتم. وولالكين عتيبة شيخ أحمد إن شاء الله تعالى هدو الله الرحمن كقدر موقالك ما أنتو حنكا قاعد دونا لبا حنون oo kamida xanuunada ugu saameynta badan leh bulshada waqti xaadirkan aynu noolahay. waa laba xanuun ama laba cudur oo qatar ku haya bulshadeena maanta intooda ugu badan. xanuun waxa weeye waa xanuunka loo yaqaan macaanka ama dadka qaar kood soo yaqaaniin sokorta. xanuun waxa weeye waa xanuunka loo yaqaano dhiigkarka ama pressure dadka qaar kood soo yaqaaniin. labadaas xanuun oo maanta dad fara badan oo inaga mid ah dhibaato badan ku haya, ragaadiyay, culeysyo badan ay dadku ka dareemayaan ayaan insha allahu tacaala aan doonayaa maanta inaan dul istaago. walaalayaal, anigoo ka eegaya yacni dhanka cilaajka maadaama shaqadeedu ay tahay shaqo cilaaj, anigoo ka eegaya dhanka iyada xanuunadan macaanka iyo dhiigkarka intaba mararka qaarkood waxaa dhacda dad fara badan oo la dhibaataysan oo aan arkay u yimid oo waxaan arkay yacni markii aan quraan saaray ay ka dul hadlayaan shayaadiin ay leeyihiin macaanka annaga ayaan iska dhignay ee gabadhaani ama wiilkan macaan ma qabo, annagaa sokorta iska dhigayna, annagaa dhiigkarka iska dhigayna, annagaa ku mashquulinayna sifoo dhakhaatiirta ugu dawareego waqtigana kaga dhumo. laakiin xaqiiqadu waxa weeye macaanna ma hayo, dhiigkarna ma hayo, annagii ayaan ruuxaani dhibaataynayna. marar fara badan ayaan arkay. waan isweydiiyey marka, ma sababi karaan xanuunadan isha iyo xasadka iyo waxyaabaha lamidka ah isha ma sababi karaan yacni xanuunadan sokorta iyo macaanka? baaritaan dheer kadib waxaa ii caddaatay inay suurtagal yihiin. weliba waxaan arkay dad fara badan oo xataa loo soo qoray cirbado la yidhi qaarkood waad la noolaanaysaan xanuunkaa sokorta, qaarkoodna kaniiniye loo soo qoray, bac kaniine ah la leeyahay cuna intii noloshiina ka dhiman, haddii kaleeto khatar baad galaysaa, waad dhimanaysaan. arrintaas ayaa rabaa marka insha allahu tacaala wax yar inaan idinka fahansiiyo, maadaama aynu nahay ummad muslim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala muslim ka dhigay, iimaan leh. ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey daawo aan la siin xataa gaalada, ilaahay subxaanahu wa tacaala uuna siiyey. maxaa yeelay walaalkayga muslimka ohow iyo walaasheeda muslimadda ahay midna ogow, ilaahay cudur ma soo dejiyo ilaa wuxuu soo dejiyaa daawadiisa. maa nazala allahu daa'an ilaa nazalahu shifaa. ilaahay cudur ma soo dejiyo ilaa haddii uu soo dejiyo wuxuu soo dejiyaa daawadiisa. cudur bilaa daawa ma jiro, ogsoonaada. cudur kasta daawo buu leeyahay. waxaa daawo ah qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. qofku markuu xanuunsado qur-aanka ilahay baa saarayna, maxaa yeelay ilahay baa subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaءun waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu الظaalimiina ilaa khasaara. waa shifo, waa daawo, waa caafimaad, waa raxmad, qur-aanka ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba marka sidee marka macaanka iyo dhiigkarka dadka haya loogu cilaajiyaa fi lqur'aan? tajribo badan oo aan sameeyey, dad badan oo aan talooyin siiyey, ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caafiyey, aan arkay, ayaan jeclahay maanta inaan idinkula wadaago muuqaalka, adinkuna inaan idinkaga faa'iideeyo. haddii uu jiro qof ehelkaada uu macaan qabo, haddii uu jiro qof ehelkaada uu dhiigkar qabo, haddii uu jiro qof yacni qoyskaada ka mid oo xanuunsan lana xanuunsanayo labadan xanuun aan soo tilmaamay, macaanka iyo dhiigkarka,
muuqaalkan la wadaag si uga faa'iidaysto uguna tinfaaco. kow waxaad soo qaadanaysaa koobkan biyaha ah ayaad soo qaadanaysaa. waxa aan ka hadlayo waxa weye waa tajriibo, waa waxaan tajriibeeye weye. qur-aanka ilaahi waa daawo, wax kastoona daawo yahay oo xanuuna. anigu aqoonteeda gaaban iyo cilmigayga yar waxaan tajriibo ku ogaaday aayadahan aan kuu tilmaami doono. haddii aad biyo ku akhrisato, haddii aad la dhiban tahay xanuunka macaanka iyo xanuunka dhiigkarka iyo waxyaabaha la midka xanuunadan, haddii aad aayadahan qur-aanka aad ku akhriso biyahan, walaalkayga muslimka aho iyo walaashayda muslimadda ahay, aroortiina aad cabto adigoo afkaada qaba, habeenkii markaad seexanaysa agteedana aad cabto biyahan inta qur-aankaa ku tufato, waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka rajeynayaa inaad ku caafimaadi doonto ilaahay idinkii subxaana wa tacaala. waa haddii aad si niyada oo yaqiin ah adigoo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa weyneynaya, aaminsan inuu daawo yahay, haddii aad cilaajkan samaysid. intaas weeye waxa aan ka leeyahay muuqaalkan. dan kale aan ka leeyahay haba yaraatee ma jirto. waxaan jeclahay inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan ugu dhowaado, ummaddana aan ku anfaco wixii aniga aqoonteeda gaabana sifay ugu faa'iidaystaan uguna intifaacaan. walaalkayga muslimka waxaad soo qaadanaysaa koobkan biyaha ah ee la dhiban xanuunka macaanka. koobkan biyaha soo qaadanaysaa. haddii aad heli karto biyo zamzam ayaga ugu wanaagsan, soo qaado biyaha zamzamka ah. aroortii markuu waaga baryo adigoo afkaada qaba, waxnana aadan cunin, walaa kaniini walaa quraac, adigoon waxba aana afka saarin, markii aad soo kacdo salaada ilaahay dukato aad cadaysato, bakeeri biyo ka soo buuxiso. haddaad zamzam heli karto waa sida ugu wanaagsan ugu khayrka badan. soo qaado, afka u dhoweeyo. afka markaad u dhoweyso waxaad ku akhrisaa 7 faatixa, suuratulfaatixa ayaad ku akhrinaysaa. ummulqur'aan weeye, waa daawo, waa caafimaad. soo nabi maxamed calayhi salatu salaam inoo tilmaamay. suuraddaas ku akhri 7 mar adoo afka u dhoweynaya oo ku tufaya tufta saas ugu tufaya 7 mar baa ku akhrinaysa. waxaad kaloo akhrinaysaa 4 qul. waa qul yaa ayuha alkaafiruun, waa qul huwa allaahu axad, waa qul acuudu birabbi alfalaq, waa qul acuudu birabbi annaas. waxaa 5 kaga dhigaysaa qul allaahumma maalika almulk tu'ti almulka man tashaa'u وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيضا أصبات شنكا قريسة. وقل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. شنتاس خلائق يدكو آخر نيسا كتفيسا هذا أفكا ودويني وليبا آيات كستوحى كتفيسا تضبجر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تضبجر بعد آخر نيسا تضبجر آيات كتفيسا. قل يا أيها الكافرون تضبجر. قل هو الله أحد تضبجر. قل أعوذ برب الفلق تضبجر. قل أعوذ برب الناس تضبجر بعد كتفيسا قد كتفتو كسو قتميسا السن لغا النبي عليه الصلاة والسلام. هي آية الكرسي. آية الكرسي أيضا waxaad ku tufaysaa 7 jeer. saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaad ku tufaysaa 7 jeer. biyahaasi markaad intaasoo quraan aad ku tufto waad cabaysaa si niyo ah oo yaqiin ah ayaad ugu tufanaysaa waad cabaysaa adigoo ilaahay subxaanahu wa tacaala kaga rajeynayo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala xanuunka keena kaana qaadi kar. niyadda aduu qalbiga ku haya maxaa yeelay cudur ilaahay ma soo dejiyo ilaa daawadiisa soo dejiya. daawada ilaahay subxaanahu wa tacaala sigaa kaa yaqaana. meeshaad ku caafimaadaysid iyo goobtaad ku caafimaadaysid iyo xilligaad ku caafimaadaysid iyo intuu xanuunka ku haynayo inaad la dhimanayso inaad la noolaanayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku cilmi leh. si fiican u faham walaalkayga muslimkoow. waxba yaa lagu wareerinin, waxba yaysan gaalo waswaas kugu abuurin. qof muslim baa ilaahay kaa dhigay, wax kasta waa laga caafimaadaa. nabiyullaahi ayuub calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam 18 sano xanuunsanaa. marad baa ku dhacay xanuun jirkiisa gogo'ay 18 sano. إلهي سبحانه وتعالى بوبري ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي ملكي وكأجيب 18 سنة ودباتي سنة ودولك قال وجيركي سوء دلدلاعي ومقاربه قدعي. إلهي سبحانه وتعالى إلهي وكأجيب. إلهي من داو كواي وهمية
يا حنونك كوكان إلهي يا كاقادي كان إلهي يا كو أبور إلهي يا حنونك كان إلهي يا أبور حنونك إلهي سبحانه وتعالى إلهي بري قرآن كان أخرسه إلهي وحن كرجينيا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى إنه إلهي كو عافي كاغان عافيو حنون كاني dhibaatada badan dadka ku haya weliba khaasatan jirka yani dadka bini'aadanka dhibaato badan ku haya inuu ilaahay subxaana wa tacaala kaa dulqa cirbad dambo jirkaada kuma duraysid adigoo macaan yani ka taxadaraya kaniini dambe cuni maysid oo bareshar iyo dhiikar loogu talagalay intaba adigoo ilaahay subxaana wa tacaala xayi uu yahay ilaahay subxaana wa tacaala laa yamuut uu yahay ilaahay bari kaniiniga insha allahu tacaala wad cilaajkaana wad kadib baroway xaaladaadu say noqoto adoo kaniinigii wada cilaajkaana wad kadibna waxaad isku daydaa xilliga kaniiniga aad cunaysa waktigii inaad xoogaa aad dib dhigtid aad fiirisid xaaladaada la socotid si aad u ogaatid in yacni isbeddel uu jiro in kaleeto laakiin haddaad kaniiniga isku cunto taaliisha aad cunto ayaduna waa wanaagsan tahay muhiimadda waxa la raadinaya waa caafimaad labadu way wanaagsan yihiin kaniiniga wad oo yacni marmarka qaarkood tijaabi oo kabod oo yani isbar biyaha taaliisha ah maxaa yeele qur-aanku waa xoogan yahay aad buu u culis yahay qur-aanka ilaahay subxana wa tacala ma sahlana yani waa caafimaad waa daawo sir baa ku jirta qur-aanka ilahi subxana wa tacala sababtu ilahi u leeyahay waxaan usoo dejinay daawo iyo raxmad wanunazilu min alqur'aani ma huwa shifaaun wa raxmad sir baa ku dugan halka iyada ilahi subxana wa tacala baa og niyad iyo yaqiin baa lagaa doonaya marka ilaahay bari ilaahay weydiiso biyahana ku tufo kaniinigana wad ilaahay idinkii wax ka rajaynaya subxaana wa tacala inaad ka caafimaadi doonto oo la dhihi doono yacni maanta ugu dambaysay cilaajkan baa wadaysaan muddo 14 cisho ah waa 2 isbuuc subax iyo galab subaxdiina biyaha waa tufanaysaa qur-aanka kuu sheega waad ku tufanaysaa adoo afkaada qaba kadibna biyaha waa cabaysaa habeenkii inta aadan seexanina qur-aankan kuu sheega baad ku tufanaysaa kadibna waad cabaysaa muddo 14 cisho ilaahay idinkii subxaana wa tacaala ilaahayna ha kugu caafiyo caafimaad taaman allah ku siiyo sokorta iyo dhiikarka intaba ilaahay subxaana wa tacaala sigaa keen ilaahay kaa dulqaado ilaahay baan kuu baryaynaa ilaahay baan kuu weydiinaynaa inuu ilaahay kaa dulqaado ilaahay ha kaa dulqaado ilaahay caafimaad taama ha kugu siiyo culeyskana allah kaa dulqaado waa walaalkaa cuteybe sheekh axmed oo muuqaalkan yacni idinkugu talagalay inuu idinkugu faa'iideeyo niyaddana idinkugu dhiso runtana yacni idin bidhaamiyo إلهينا سبحانه وتعالى إنه إلهي حنوكنا كيانو حنوكنا إساقا قادو إلهينا أكو كالصونانو إلهينا أبرنا إلهي سبحانه وتعالى دمانتنا هينا ودعافيو دمانتنا وإنه حنوصلنا قفل بحنون بحيا كوبا قاثلا ديبان كوبا كيليها لقدقا كوبا ديكار هيا كوبا سكر قبا كوبا سوحتين قبا كوبا يعني قلبي سان دقنين دمانتنا وإنه حنوصلنا دمانتنا وإنه حنوصلنا مدبا علوشي كجرن مدبا وناها كجرن مدبا سحرة كجرن mid baa kaadihaysta ka jiran mid baa lugaha ka jiran mid baa dhabarka ka jiran mid baa dhuunta ka jiran ninba meel buu ka jiran yahay ilaahay aan isku xirno ilaahay aan barino cilaajkan insha allahu tacaala si gooni ah aan ugu dadaal insha allahu tacaala weliba dadka qaba xanuunada sokorta iyo macaanka intaas weeye muhiimadeyda iyo gabagabadeyda muuqaalkan la wadaag walaalaha kaleeto sifay ugu faa'iidaystaan uguna intifaacaan ilaahayna subxaana wa tacala idinku caafiyo oo walaalka cuteybe sheekh axmed asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu